lug ayaa ka soo muuqatay meel dhulka hoostiisa ah oo qabriga nabiga u dhow sallallahu calayhi wasallam. mar la damcay in la dumiyo darbi u dhowaa qabriga nabiga sallallahu calayhi wasallam. ugu horreyn waxaan ka codsanayaa muuqaalkan like saarto ugu yaraan 3 qof asxaabtaada kamid inaad u share garaydo nabigana aad ku salido sallallahu calayhi wasallam. qisadani waa mid dhab ah waxayna ku qoran tahay saxiixul bukhari. sida aan ognahay nabiga sallallahu calayhi wasallam Umar ibn Khadaab iyo Abu Bakar ba waxa ay si wada jir ah ugu duugan yihiin qolkii Aisha radhiyallahu anha. laakiin markii ay duugnaayeen 70 sano gaar ahaan xilliga boqorkii la oran jiray Waliid ibn Abdul Malik, xilligaas waxaa dumay darbi kamid ah darbiyaasha qolkii Aisha radhiyallahu anha. dhanka darbiga xiga waxa ay ka arkeen lug ka soo muuqata dhulka hoostiisa meel qabrigii nabiga u dhow sallallahu calayhi wasallam. lug qof bini aadam ah. dadkii oo dhan waa ay argagaxeen waxayna u maleeyeen lugtan inuu leeyahay nabiga sallallahu calayhi wasallam. waa ay fikireen waxayna yiraahdeen waxaan ku xadgudubnay xurmadii nabiga sallallahu calayhi wasallam iyo jirkii daahirnaa oo nabiga sallallahu calayhi wasallam. laakiin waxa baray taabicigan oo xilligaas joogay waana wiilkii uu dhalay Zubayr ibn al-Awwam radhiyallahu anhu. waxa uu sheegay lugaha nabiga sallallahu calayhi wasallam inaysan u dhaweyn darbiga nabiga sallallahu calayhi wasallam madaxiisuna inuu u dhow yahay darbiga. waxa uu sheegay lugtan inuu leeyahay Umar ibn Khadaab maxaa yeelay asaga ayaa lagu duugay lugtiisa darbiga meel u dhow.